السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وحري حسن حسين أولونا يقانو مارتا حوق سودا برشد انتو بداني او تقانو إن يرمانتو حاربينا وحكا يركا تابتو برامج كسابسان مارتا عافيماتكا قارهان دودا لو يقانو ميتو كولبرومايد دودا سولو استعمالو حلقا قبلها مارتا أي كوچران ولا حلقا لو يقانو أي كوچران inta badan waxay dareemaan gabdhaha xilligaas markay ku sugan yihiin sida la labo matag abateed xumo inaysan maaragtaa cuntada aysan rabitaan iyo waxaas tii maaragtaa cuntana ay soo celinayso marka inta badan hadii qofkii maaragtaa ama ilbaxa ama ma garanaysa ay caafimaadka wax ka fahamsan waxay sameeyaan dadka noocaas in ay ma garanaysa ay xoogaa qofkii ay la tacaalaan oo dawadan iyo kuwa kale la mid ah badan in maaragtaa ay kula tacaalaan si ay maaragtaa qofkaas xilligaas ay ku jirto oo dhibaatada badan ay maartay nifaas u hesho hadaba kaninkan waxa la yiraahdaa metoclopramide waa 10 mg asagoo mixed oo mudooyinka lagu jiraan uu soo baxay laakiin hadda maanta kan oo kaliya baan ka hadlaynaa marka faa'iidooyinka uu leeyahay waxa weeyaan dawada metoclopramide waa dawo lagu daweeyo mataga iyo lalabada waa dawo si saa'id ah loo isticmaalo waa dawo laga heli karo iyadoo kanina iyo iyadoo maaragtaa cirbada inta la heli karo xididka laga qaadan karo direct in loo siiyo gabadhana maaragtaa xogaa waxa kaga yara wanaagsan in maaragtaa faleemba loogu daro iyada iyo maaragtaa cirbada la yiraahdo vitamin B complex marka sidoo kale dawadan waa dawo lagu daweeyo xilliga gabadha walaaca ay ku jirto si aysan matag iyo waxyaabo noocaas aysan u dareemin ilaa ay maaragtaa ay ka gaarto xilliga ay labadaas ay ka gudbayso kaninkan sidoo kale waxa weeye waxa jiro dad markaad u sheegto oo ama nin xaaskiisa arintaas ay ku sugan tahay ama gabar xilligaas ku suganba ay ku sheegto xilligaas in ay dareemayso laba iyo matag iyo waxyaabo noocaas markaad u sheegto tiraada kaninkan isticmaal xogaa intooda badan waxay yiraahdaan maaragtaa dadku kaninkan ama maaragtaa dhibaato leeyahay ama ilmaha wax u dhibaa ay wixii horta ilaahay soo ridaayo waxa weeye dawalaan bay soo dhacayaan laakiin kaninkan metoclopramide ahaan ma ahan kanin ay maaragtaa intooda badan ay maaragtaa yeeleen karo cunugaas maaragtaa caloosh ku jira ama hooyada maaragtaa ilmaha sido wax dhibaato u geysan karo dhankaas oo side effect ah ma ay jiraan kaninkan faa'iidooyinka markay ay ka heliso markay ay maaragtaa gabadhu ay isticmaasho waxa kamid ah lalabada inuu ka istaajiyo oo maaragtaa ay candhuufti farada badneed oo tufaysay maaragtaa in ay dib u laqi karto in maaragtaa abateed ahaan inay cunto ay u baahanayso oo maaragtaa inta badan ay maaragtaa inay wax cunto ay jeclaanayso haday cuntana aysan maaragtaa sidii caadada awal ahaan jirtay aysan maaragtaa soo celin dawada ayda oo maaragtaa ay mataga maaragtaa ka joojiso kaninkan waxa loo isticmaalaa habeen iyo subax ama 1x2 sida maaragtaa aad u fahmi karto habeenkii hal xabo subaxina hal xabo adigu maaragtaa 10 daqiiqo ka hor intaysan wax cunin gabadha maaragtaa inay isticmaasho marka wuxuu ka caawinayaa 10 daqiiqo intii ay wax cunayso cunto ay diyaarsanayso inuu ku sii faafo ka bacdina maaragtaa ay waxay cunto ay si toos ah u yeeshan karto sidoo kale waxa jirto kaninkan ma ahan kaliya inuu u gaar yahay haweeneyda uur kale laakiin waxa lagu daweeyaa wax kasta oo ku yimaado lalaba ama matag laanka hooyada aabaha waalidiin qof kasta oo maaragtaa arinka ula soo gudboonaado oo isticmaali kara waa dawo furan oo qof kasta oo maaragtaa calaamadahaas dareemayo oo isticmaali karo hadaba ma ahan marka dawadan inaad si khaldan u isticmaasho oo aad u isticmaasho markaad wax cunto ka bacdi inaad isticmaasho leeyahay cuntadii hadii ay ka hormarto asagi ma xakameyn karo matagaas iyo lalabadaas waa in maaragtaa dawadu ay dib marto ay maaragtaa ay ka dib marto cuntada oo dawadan ay horeyso waa marka hore 10 daqiiqo bacdi adoon wax cunin oo gaajeysan inaad isticmaasho sidaas la mid ah ma ahan inaad iska badiso oo aad maaragtaa 2 iyo 2 iyo 2 aad ka laqdo ama 3 waqti aad u isticmaasho waxa loogu talagalay kaninkan qofku inuu u isticmaalo habeenkii hal xabo subaxii hal xabo cuntada kadib biyo badan uu ku cabo hadii infusion ay noqotana sidoo kale waxa weeye habeen iyo subax ayuu qofka xididka qaadanaya marka maanta intaasaan kaliya soo jeediyay insha Allah waa inoo maaragtaa